السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الخالق أسود وهذا maanta iyo muuqaal cusub maanta waxaan sameysanaynaa afurkeena baasta saldaato iyo chicken iyo kastar aada u macaan soo dhawaada channelka subscribe dheh share iyo like iyo comment iskugu daro aada u mahadsantihiin marka horeeto waxaan sameysanaynaa baastadeena saldaataysanaynaa karsanaynaa halkaasna waxaan ku diyaarsan oo kaleeto kastartii oo lin orange aan kor uga daadiyay iyadana marka suugadii baastada aan ku saldaataysanayna hadda karsanaynaa marka horeete digsiga dab soo saarto waxaa kusoo shubtay hal xab basal weyn aan soo jarjartay maalin kasteete maadaama ramadaan ay tahay lama cuni karo sambuus iyo maxaa la dhihi jiray saliid iyo wax lama daba ordi karo marka waxaa sameynaynaa baasta saldaato ayaa ku afuraynaa insha allah iyo waxyaa fruitkeena iyo waxyaabeena kale iskaga afurayna laakiin baastada la soo duubay marka baastada iyo chickenka soo duubay haddana chicken waxaan ku daray nus kiilo ah oo boneless-ka ah waa chickenka jiirta ah marka intaas iyo qudaar yar oo waxaan ku daray xawaajiyaal yar oo caraf aan ku darsaday dib waxaan ka isticmaali doonaa paprika iyo waxyaabo kale chicken masala iyo waxaasaan ku darsan doonaa intaa markaas ugu darsadan wax yar shiilo waxaan ku darayaa yaanyada marka intaasaa rabaa inay ii shiishiida markaan ku daro ee si fiican iigu soo karto marka intaana si fiican u karinayaa waxaa kusoo darsaday hadeertaan kabsar caleen iyo toon aan soo tumay ayaan hadda ku daray maadaama chickenka uu shiir yar leeyahay shiirkiisaa nibcahay marka dhaqsama go-do inaa carafto waxyaabaha carfaaya aa ku badisa ma ogiye marka waxaan kusoo daray hadeertaan kabsar caleen iyo toon waxa kaloon ku darsanayaa yaanyo waxa kaloon ku darsanayaa shiishiid bas marka intaas markaan ku daro yaan waxaan sameynayaa daboolkaan u dhiibaya ilaa intuu kasoo karaayo waa bishii dambi dhaafka waa bishii naarka xoreynta waa bishii leylatulqadarka uu ku jiray waa bishii qur-aanka ilaahay uu soo dejiyey waa bishii muuminka risiqiisa la siyaadinayey waa bishii ducada la aqbalayey waa bisha uu nebigu dhaha cusbayr aan kusoo darsaday shiishiidaan ku daraayo daboolkaa saaranaya intuu kasoo karaayo waa isku soo laabanayna insha allah baa ku jirta habeenka khayrka ay leedahay ninka laga xarimay khayr dhammaantii waa laga xarimay buu rasuulku yidhi waa bishii albaabada jannada la furayey waa bishii albaabada naartana la xidhayey waa bishii shayaadiintana xadhkaha lagu xidhayay silsiladaha lagu jebinayey waa bisha ilaahay caza wajalla habeenka u horraysayd bilanayso oo uu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayow bishii khayrka waa suugadeena haddana diyaar oo gooniya diyaar u tahay biyaha baastada dabka soo saartay waxaan soo karkariyay baastada biyaheeda nus kiilo iyo rubac baastaa karinayaa maadaama afur laga rabo dadkii badan yihiin baasta lagu afuraya galabta afur waayo baastada insha allah waxaa kaloo sameynayaa oo kaleeto gooni burshiishiil iyo waxaa gooni usoo kariyey oo ku afuri rabnaa baasta kalix ma ahan marka insha allah suugadeena diyaar waa baastadana waata waan soo kariyey karis badan ma la karinaya iyada baasta saldaatada wax yaraa la karinaya bas ah marka waan ku ridayaa suugada intaasaa laga rabaa haddii intaas ka yaraato baastada qaleelay kaa noqonee marka baastada hadda ku guraaya waan ku saldaatayna insha allah isla arkaynaa baastadeena ma jilicsano baasta jilicsan ma aha marka insha allah waan soo saldaataynaya waan isla arkaynaa iyadana soo qaabilo kaalay waya baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo xumaanta iyo fujuurka iyo macaasida u degdegayow war bishani bisha ilaahay la caasinaya dembiga la samaynaya maahine ka gaabso xumaanta oo ka joogsa baa la leeyahay habeenka u horreysa marka martida qiimaha la inagu soo socotay inaan soo dhawayno oo ku soo dhawayno qalbi furan iyo duco iyo cafis iyo diyaar garow iyo qur-aanka inaan u fadhiisanno waa bishii taraawiixda waa bishii masaajidda la camirayey waa bishii amniga waa bishii barakaadka waa bishii dadka muslimiintu ay saamaxayeen iscafinayeen waa bisha dadka aytaamta iyo masaakiinta la quudinayey ee la ciidsiinayey ee la afursiinayey waa bisha muuminka risiqiisa la siyaadiyo weeyaan inaan martidaa soo dhawayno oo qalbi furan haddana waan soo dhameeyey 3 barbarooni kala nooc iyo basalaan kusoo darsaday sidaasan haddana usii walaaqaya iyadana waan sii dhexgelinayaa
marka isii dhex geliyo daboolka u dhiibaya waxyaara raba inay huurto bis oo kuleelka ay isqaadato bas baastada intaas lee waa kariskeeda waxaan rabaa inaan suugadeeda ayada si fiican sii dhex geliyo iyo barbarooniga si uu carafta gudaha uga sii galo marka baastadeena hadda sidaas ay ku dhan tahay waxaan saarayaa daboolka inay sii yar huurtaa rabaa markaas ka bacdina waxaan karsanaynaa chickenkeena aan karsanaynaa chickenka waxaan rabaa inaan qudaarta marka hore chickenka biyo ku soo kariyo chickenka waxa waa fridge-ka ka soo bixiyay asagoo saas inta wax la marmariyo maxaa la dhihi jiray laguma dhex ridi kara saliida inaa horta biyo ku soo kala fujiso waaye marka hore ama iska soo karisid marka hore qal iyo biyo iyo inta ku dhaqay hagaajiyay qal iyo cusbo iyo ku soo dhaqay fridge-ka gashtay chickenka waxa waaye chickenka soonka oo dhan fridge-ka igu jira hadda waa la idmo insha Allah waxaa sameeyay chickenka waan soo kariyay biyo ku soo kariyay halkan marka waxaan ku soo shubtay soya sauce maraq digaag wax walbato maxaa la dhihi jiray yogurt waxaan ka hilmaamay rinji kalarkii aan ku daraaya hadib ugu daraaya intaasaan isticmaalaya insha Allah markaan intaas isticmaalo yaa waxaan sameynayaa maxaa la dhihi jiray yaan karinaya kabacdina waxaan karsanaynaa kastarteena intaa markaan saa isu dhex geliyo oon karsano saliidda dabka saarno kastarteena karsanaynaa insha Allah isla socon iyo niyad furan iyo gacmo furan inakuna isa sii cafina soo diyaar uma nihin insha Allah waa la wadi karaa ilaa caawa waa la hadli diin waa laga hadli karaa laakiin ku dhaqankayga Allah ina siiyo anigana waxa aan ku hadlaayo ilaahay aakhira iguma qabto inikana waxa aad maqlaysaan ilaahay iguma qabto aamin dhahada de anigana ilaahay waxa aan ka hadlaayo ilaahu aakhiraha igu qabsan ilaahu aakhiraha igu qabsan amal falka diinta Allah ay noofuro waan maqlaynaa waa ku dhaq sidaas oo hadda qaybteena hore isku soo karay sidaas hadda isku dhameeyay qaybta kale aan ku ridanaya insha Allah markaas waxaan karsanaynaa hadane markaan hadda baastadeena diyaarsano insha Allah waxaan gadagalaynaa kastarkeeni inaan karsano hadana baastadeena diyaarsanaynaa insha Allah ummadana waan u sheegaynaa dhageysta diineed waa tahay si fiican baad u dhageysateen waxa ka sii fiican shaqaale diineed inaad diinta ka shaqayso diinta shaqadeeda jamaacadada Sheekh Umar iyo imaamyada iyo macallimiinta quraanka ha ku daynina diinta xil bay naga saarana qiyaamaha wala weydiin sidaas ku dhan tahay afurkeeni haddana waxaan sameysanaynaa kastarkeeni halkana caano ku soo qaatay waxaan sameynayaa waxaan ku soo darsanayaa kastarti ilaa iyo waxaan ku soo darsanayaa 4 qaado oo kastar ah marka hal qaado oo waranka ah ayadana aan ku soo darsanayaa marka waxaan rabaa inaan intaas iyada isku kariyo oon maxaa la dhihi jiray goonina aan liin macaan soo miiray liin orange soo miiray liinta orange-ga rabaa dabka inaan saaro oo ku daro maxaa la dhahaa oo ku daro warango marka ayadana si ay u soo adkaato oo kor uga saarto qatar ay ugu noqoto marka insha Allah tan saas u walaaqaya ilaa ay ka soo korto saas in loo walaaqle waaye waxa ku soo darsanayaa sokor yar sokorta aad dhadhanka intii aad ka rabtid la ku darsan kartaa marka sokor yar ku soo darsaday oo bakeeri haafkiis ah ku soo darsaday marka intay ka karaysaas inaan gacanta ugu haysid waaye marka faniilada ka hilmaamay faniilada waxa waaye tii ah haystaa marka isticmaal kartaa tambiyaha tambudada hayla isticmaal kartaa marka intaas asaas u isticmaalay insha Allah lagama sheekeyn karo oo afur yar oo isku qabooji bacda afur ka bacdi sidaas ay hadda ku dhantahay tan oo ku soo kariyay kastarteeni marka waxaan hadda karsanaynaa orange-gii asla aragna insha Allah wax soo qaatay digsigaas yarka ah waxaan soo miiray 3 xabo orange ah waxaan ku darsanayaa maxaa la dhahaa warango 2 qaado ah marka waan walaaqayaa ilaa ay ka soo karto marka ilaa ay ka soo adkaato waan walaaqayaa insha Allah isla Ramadaan khuruujka ha baxno 10 cisho ha baxno oo 20 cisho ha baxno oo ka jamaacadada inuu raaco u suurta gali weydana ha i'tikaafo masjidka soo i'tikaafo sidaas ay iyadana u soo adkaatay marka lagama sheekeyn kara iyadana marka kastarti iyadana diyaar waa labadooda isku mar soo kariyay waayo tan hadda ku soo kariyo iyadana way iga sii qaboobaysaa marka kastarka markaan kariyo ku soo shubay intaan kale kariskeeda galay marka iyadana waa inaan ku soo shubaa marka koraan ka saaraya maadaama isku color ay iga noqdeen orange-ga
يا رب كور إنك قدر مركي كدو أورنج زائد نقنة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كور كتب أساس أقدر درايا إن شاء الله واسلا أركينا أيضا نسيك صبح على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بإلهي كو إيمانك لغا هلايو صوم با ليدنكو واجب يالي سيدي أمده يدنكو هريبا لغو واجب يالي وكا صحابتي قالي فريج كان هدا كسو بخيي قروحdeeda iyo lagama sheekeyn karo macaankeeda adeeg waa wax kala daadanayo ma ahan ma sha Allah tabaaraka Allah inta haysan Allah sii inta haystan Allah siyaadiyo anagana Allah noo siyaadiyo muuqaalka share iyo like iyo comment dhaha saaxiibayaalow inta muuqaalka xig ku kulmeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi حلين واجب يال مع عقابه وانت الله ينعقابه دبق الله ينقام يا مياه مياه